السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلامتين صاحبي الدمانتينا ميل كستوات جوكتان سو دوادا مانتي وحان قادنينا past perfect tense in past voice oo tenniska toddobaad ah waxaan ku bilaabayaa macadka Al-Nur Academy wuxuu kugu baraya luqadda Ingiriiska si online ah ama si oo foolka fool ah labaduba muddo aad u kooban iyo waliba qiimo ku raali geliya telephone numberka kala xiriir telefoonka shaashada ku yaalo kadibna aan casharka gudaha u galno aan dhahay qaacidada maanta casharka waxaa waaye subject plus had plus bb plus subject sidii present perfect oo kale kanaba activiska wuxuu qaadanayaa bb u qaadanayaa hadna wuu qaadanayaa had waxay wada qaadanaysaa dhammaan pronounska wada qaadanaysaa passive kan sida tan waa object plus had plus been plus bb plus by plus subject. Let's do the active voice mark. You had spoken English. English ayad ku hadashay. The police had arrested the thief. Police ku waxay soo xireen tuuga. Had you written the lesson? casharka miyaad qortay? Had he driven the car? gaariga miyuu kaxeeyay isaga? So laba su'aal ah iyo laba oo interrogative aan ahayn oo statement caadi ama affirmative ah ayaa noo qoran. Let's change into passive mark. English Ingiriiska had been spoken waa lagu hadlay by you adiga ku hadashay. So spoken is spoken isbedel maysan ku dhicin sababtoo ah marka hore bb ahayd. The thief tuuga had been arrested waa la soo xiray by the police ka soo xiray. Had the lesson been written casharka ma la qoray by you oo adi ma qortay. Had the car been driven by him gaariga ma la kaxeeyay oo ma la waday oo isaga ma waday. You guys aad iyo aad u mahadsantihiin intaan kulmi doono cashar kale siyaasiyo nabadgelyo.